Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Saaxiibayaal soo dhawaada. Magacaygu waa Cabdirasaaq Cariif. Waxaa idin rajeynaa dhammaantiin inaad caafimaad qabtaan sida anigu caafimaad qabo. Sidoo kale dhammaan walaala xanuunsan waxaan alle ugu baryaa in uu caafimaad degdega siiyo. Haddii ay tahay markaa kugu welitaan soo booqto YouTube channelkeena subscribe saar. Aad iyo aad u mahadsantahay. طعم الدنيا اتغير. Muuqaalkeena maanta waxaan uga hadli doonaa dhismihii Kacbada iyo sida ay ku soo bilaabatay iyo cidda dhistay oo ka dambeysay dhismaha Kacbada. Sida Alle Qur'aankiisa ku sheegay, Kacbada waxaa dhisay Nabi Ibraahim calayhi salaam iyo wiilkiisa Nabi Ismaaciil. Nabiyullaahi Ibraahim calayhi salaam asalkiisa waxa uu ka soo jeedaa dhulkan loo yaqaano Ciraaq, magaalo yar oo saaran daanta galbeed ee webiga Furaat oo magaceeda loo yaqaano Arah. Waa meel hadda ku aadan Kuufa agteeda. Nabi Ibraahim calayhi salaam iyo qoyskiisa ayaa ka hijrooday magaalada Arah, waxa uuna u hijrooday dhanka kale ee Xaraan, kadibna dhulka Falastiin, halkaas uu ka dhigtay saldhig weyn ee dacwada dadka ugu yeero. Nabi Ibraahim calayhi salaam waxa uu u bixi jiray safaro badan oo dacwo ah ee uu ku maray dhulka Falastiin iyo meelo badan ee ku yaala dunida. Safarada mid ka mid ah waxa uu Nabi Ibraahim calayhi salaam ku tagay dhulka Masar, halkaas oo Namruud ka talinayay oo u degay shirqool ka dhan ah Ibraahim calayhi salaam iyo zawjadiisa Saara. Shirqoolkaas uu ahaa isku day kufsi uu la damcay Nabi Ibraahim calayhi salaam zawjadiisa Saara. Saara oo ahayd gabar aad iyo aad u qurux badan oo la siiyey quruxda dunida barkeeda. Alle shirqoolkan waa uu ka badbaadiyey ayadoo Namruud oo ku arkay Saaro mucjiso weyn. Namruud waxa uu aqoonsaday xiriirka Saara ay la leedahay Alle subxaanahu wa tacaala, wuuna fahmay fadligeeda iyo sharafteeda, isla markaana uu siiyey gabar shaqaale ah oo magaceeda la yiraahdo Haajara. Saara oo ahayd xaaskii Nabi Ibraahim calayhi salaam ayaa u guurisay gabadhii shaqaalada ahayd ee Haajara. Nabi Ibraahim calayhi salaam waxa uu ku soo laabtay Falastiin asagoo Alle ka siiyey Haajara Nabi Ismaaciil calayhi salaam. Haddaba dhalashada wiilkan oo ahaa Nabi Ismaaciil calayhi salaam waxa uu maseer ka keenay zawjada weyneed ee Nabi Ibraahim calayhi salaam waa Saare, maadaama ayada aysan dhali jirin darteeda, ilaa Nabi Ibraahim calayhi salaam ku kaliftay in uu fogeeyo Haajara iyo Ismaaciil calayhi salaam oo wiilkeeda yaraa ahaa. Nabi Ibraahim calayhi salaam waxa uu la safray Haajara iyo wiilkeeda yar Ismaaciil ilaa uu kala soo galay dhulkan Xijaaz, wuuna dejiyey geed weyn hooskii oo uu ku yaal dhul aan beero lahayn oo u dhow meesha uu Alle subxaanahu wa tacaala u doortay inay noqoto beydkiisa sharafta leh ee xaramka. Nabi Ibraahim calayhi salaam waxa uu dejiyey Haajara iyo wiilkeeda Ismaaciil geed weyn hooskii oo ku beegan ceelka Zamzamka, meesha uu ku yaalo, laakiin xilligaa ma lahayn wax biyo ah, mana jirin cid ku nool meesha la dejiyey Haajara iyo wiilkeeda Ismaaciil. Nabi Ibraahim calayhi salaam waxa uu agdhigay dambiil ay ku jiraan xoogaa timir ah iyo sibraar biyo ah, waana iskaga tagay. Nabi Ibraahim calayhi salaam marka uu waxyar ka dhaqaaqay Haajara iyo wiilkeeda Ismaaciil ayuu gacmaha kor u qaaday asagoo Alle ka baryay in uu keligii ku haleeyay Haajara iyo wiilkeeda yaraa Ismaaciil, kagana baryay Alle in uu ka dhigo meel dadka qalbiga kaga taal oo ay isaga soo shubmaan, uuna ku irsaaqo dadka ku nool noocyada timaarta si ay Alle ugu shukriyaan. Duca dheer uu Alle ku sheegay Qur'aankiisa suurado badan sida suuratu Ibraahim dhammaadkeeda. Markaa kadib wuxuu Nabi Ibraahim calayhi salaam isaga laabtay dhulkii Falastiin. Waqti yar kadib saadkii yaraa oo ay haysteen Haajara iyo wiilkeeda Ismaaciil ayaa dhammaaday. Haajara iyo wiilkeeda Ismaaciil waxa ay dareemeen gaajo aad iyo aad u daran marka uu Alle u soo fatahay isha macaan ee biyaha Zamzam, naxariistii iyo fadliga Alle, taas oo u noqotay quud iyo wax ay gaajada ku muudaan. Muddo yar kadib waxaa meesha soo maray qabiilo Carbeed oo loo yaqaano Jurham talabaad. Qabiiladaas ayaa markii hore mari jirtay wadadaas, laakiin kumaan aqoon jirin wax biyo ah. Markay arkeen Haajara iyo wiilkeeda waxay uga idan qaateen in ay la degaan, kadibna halkaas uu Ismaaciil ku dhex barbaaray qabiiladan Carbeed, bartayna afkooda. Nabi Ibraahim calayhi salaam wuxuu safaro badan ku soo aaday Makka si uu u kormeero Haajara iyo wiilkiisa Ismaaciil, kastoo aan la aqoonin inta jeer ee uu kormeerkan ku imaaday. Haddana Qur'aanka Kariimka waxa uu sheegayaa 2 jeer. Labadan safar midka hore inta uu ku guda jiray ayuu Alle subxaanahu wa tacaala riyo ku amray Nabi Ibraahim calayhi salaam in uu gowraco
wiilkiisa Ismaaciil. Alle u dhowaansho darteed arrintan oo ahayd imtixaan adag oo uu Alle subxaanahu wa tacaala marsiiyey Nabi Ibraahim calayhi salaam inuu wiilkiisa gowraco. Sidoo kale Ismaaciil ayaa ka aqbalay aabihiisa oo ahaa Nabi Ibraahim calayhi salaam inuu fuliyo waxa uu Alle subxaanahu wa tacaala amray. Markay labadooduba Alle subxaanahu wa tacaala amarkiisa u hoggaamsameen imtixaankiina ku guulaysteen ayaa Alle ugu bedelay wan weyn. Kadib ayuu la kulmay Nabi Ibraahim calayhi salaam wiilkiisa Ismaaciil asagoo leebab qoranayo geed weyn agtiisana fadhiya. Markuu arkay Ismaaciil aabihiisa oo muddo dheer aysan is arag, waxay isa salaameen salaan waalid aan ilmihiisa muddo dheer arag iyo ilmo aan waalidkiisa muddo dheer arag salaantooda. Safarkan ayaa Alle amray nebigiisa Ibraahim calayhi salaam inuu dhiso masjidka Kacbada. Markaas ayay bilaabeen in ay dhisaan Kacbada oo ay dhidibada u taageen. Ka ay dhammeeyeen dhismaha Kacbada, waxa uu Alle subxaanahu wa tacaala amray nebigiisa Ibraahim calayhi salaam inuu dadka ugu yeero in ay u soo xajiyaan Kacbada la dhisay. Nabi Ibraahim calayhi salaam inta uu buur dheer fuulay ayuu qayladiisa tan ugu dheer ku dhawaaqay. Markaas uuna ku yidhi, wardadow, Alle waxa uu idin saaray xaj ee u soo xajiya Kacbadiisa. Qayladaas oo dunida oo dhaafeeda gaaray oo adduunka oo idin laga maqlay. Maalintaa laga bilaabo ayay dadka bilaabeen in ay u soo xajiyaan Kacbada. Diinta Nabi Ibraahim calayhi salaamna ay ku faaftay jasiiradda Carabta iyo meelo ka baxsan intaba. Qisadeena maanta halkan ayaan kusoo afmeeraynaa. Insha Allah qaybteeda xigto waxaan kusoo qaadan doonaa Nabi Ismaaciil marka uu barbaaray, hooyadii Haajarana ay dhimatay oo uu noqday in caqli badan. Halkaas ayaan kasii wadi doonaa insha Allah. Haddii aad videogan ka heshay, like saar. Sidoo kale channelkeena subscribe leh. Wixii talo iyo tusaale ah qaybta hoose ee commentiga ayaad nagu reebi kartaa. idinkiyo haatanna sidaas iyo ammaano Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى، على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان. رمضان ده حياتي، شمعة لممات.